jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan Britain khaasatan magaalada Bristol ayaa soo agaasimay xaflad aad u ballaaran oo ay ugu dabaaldegayeen ictiraafka ay ka heshay dhowaan Jamhuuriyadda Somaliland dalka Israa'iil. xafladan oo ay soo agaasimeen waxgaradka aqoon-yahanka maalqabeennada jaaliyadda reer Somaliland ee reer Bristol ayaa runtii ahayd xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay iyadoo halkaasina ay goobjoogayaal ka ahaayeen jaaliyadda reer Israa'iil ee ku dhaqan magaaladaasi Bristol iyadoo oo ay guud ahaanba ka soo qayb galeen saddexda xisbi qaran ee Jamhuuriyadda Somaliland. gudoomiyaha komishinka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo safiir ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland oo fadhiya dalkan Britain xubno hore oo wasiir ka ahaan jiray Jamhuuriyadda Somaliland dowladihii u kala dambeeyay. guud ahaanba dadkii halkaasi ka hadlay ayaa hadaladooda waxaa ka mid ahaa sida tan. waad ogsoontihiin oo maalintii habeenkii qadiyadda Somaliland la geeyay Security Council-ka waad arkayseen safiirkii Ingiriiska u fadhiyay UN sidoo hadlayay wuxuu ku hadlayay afkii ama siyaasadii foreign policy-ga dalkan aynu joogno ee aynu qayb ka nahay aynu taxpayers ka nahay. waxaa loo baahan yahay narrative-ka ama qadiyadda in wax laga bedelo. xukuumadda Somaliland iyo jaaliyadda Somaliland iyo dadkeenu waxbay ka bedeli karaan. taariikhda marka laga bilaabay inaan 19 ka soo bilaawin 60kii ka hor waxaynu lahayn wasiiro, waxaynu lahayn prime ministero, waxaynu lahayn baarlamaan la doortay, waxaynu lahayn calan, waxaynu lahayn ciidan, waxaynu lahayn dhul la aqoonsan yahay. marka dhalinyarta iyo dadka runtii taariikhda hore ha lagu dhiirigeliyo. qodobka labaad in xukuumadda runtii looga daba fadhiisto oo lagu dhiirigeliyo oo lagu taageero horumarka dadaalka ictiraaf raadinta ee ay wadana runtii in diasporahu uu xoog iyo xeelad buu geliyo. laga soo bilaabo maalinta dadka reer Somaliland waxay soo laalaabeenay xereeyeen wax kastoo ahaa kala qaybsanaan iyo kala aragti duwanaan iyagoo saf wada galay guushu intaasay ku jirtaa. taasaynu isu dardaarmaynaa, midnimeynu ku guulaysanaynaa, midnimeynu hore ugu guulaysanay. jaaliyadda Somaliland Bristol waa jaaliyad runtii lafdhabar u ah qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. gobolada UK tartan bay geli doonaan, waxa lagu tartami doonaa waxqabad iyo horumar. dawlad bay noqon weyn luqadeena bedelaa, luqadda dawladnimada waa inaynu ku hadalaa, waa inaynu ka kornaa wixii hore aynu soo marnay. sharaf baad leedihiin, waynu guulaysanay. guulo dambe waaweyna way soo socdaan, xaflado badan bay isugu soo noqon doonaan. aad iyo aad baad mahadsantihiin. Somaliland ha jirto ha joogto. caalamka oo dhan maanta waa xaafad isu timid. Somalilandna albaabkaasay garaacaysay. albaabka ay garaacday waxa maanta ka furtay dawladda Israa'iil. aqalad garaacayso dhaxani ku haysay oo 30 sanadood geedkii laga furi waayay. marka geedka laga furo oo dhamaysid yaa iga furay yaan iga furin. qof kasto ka furo horta waad u mahadnaqaysaa si aad guriga u gasho. marka aad baan ugu faraxsanahay maanta. runtii anigu waxaan wakiil u ahay safaaradda ayaan wakiil ka ahay xagga maalgashiga. marka waxaan idinku boorinayaa inaad dalkeenna maalgashataan oo aad door ka ciyaartaan. Israa'iil taa inay ictiraaftay runtii dadka qurbaha dhisay. marka waxaan doonayaa runtii inuu nin walba ama gabadh walba ay ku dadaasho inay dalkeenna ay maalgashato wax ka dhisto. mujaahidiintii SNM ee u soo dagaalamay iyo dadkii kale dhammaantood u soo halgamay in ay helaan qardhisaan qaramada Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan jeclahay in loo duceeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariis janna ka waraabiyo, hana u naxariisto. himiladan inta hadhan Ilaahay la gaarsiiyo. waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga qolada koonfuran leeyahay war Somaliland way tagtay waxba hadaba soconina. hal ixsaan baa idin furan maanta inay idinku ictiraaftaan israacisaan. haddaad taa samaysaan wixii aad gasheen waanu ka haraynaa. waa inuu mahad celiyo booliiska Somaliland oo maanta ka hadlay qodobo muhiim ah oo security-ga ah. way mahadsan yihiin oo ka soo saaray traveling-ka iyo sida guryaha loo kareysanayo. well done baan leeyahay. shacbiga reer Somaliland waxa la idinka ayaa booliis ahaa walba security ha CID ha
halkaa kaga haya waqtigoo yar awgeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad buu mahad celinaya Allah subhanahu wa ta'ala dhammaantiin wadooda mahadsantiin haddaydaan iman maynoo suura gasheen waxa maanta aniga iyo inta ila midaba aanu ku faraxsanahay hadday caruurteedii aabba weyday inay caruurteedii ku faraxsan tahay maanta inay arkaan Somaliland oo la aqoonsaday annaga taasaa maanta noo sharaf iyo karaama aniga iyo inta ila midkaaba waxaan leeyahay waxa aynu helay fursad qaali ah waxaan marka hore idinku hambalyeynaya dhammaantiin xafladda dabaaldega اعترافka Somaliland ee 26kii December 2025 ay aqoonsatay dalka Israel. I would like first to start Assalamu alaikum, and I would like to say to my Jewish community in Bristol, Shabbat Sabah. This event is very important for us as Somalilanders living in Bristol and across the UK. Somaliland, we come together today to celebrate recognition of Somaliland by the State of Israel. And the people of Somaliland, both diaspora and people within Somaliland, have built up from ground zero to what it is now, the beautiful country and what it is. And so that, I believe, deserves a huge amount of applause. dhibaato badan baa la soo maray dadkeennii waa ogtiin waxa ku dhacay iyo taariikhda la soo maray waa ogtiin cid idinka sheekayn mayso laakiin waxaan anigu la hadlayaa caawa dadkii wixii ka yar konton ama dhowr iyo konton ka yar ee laga yaabo inaanay wax badan u soo joogin waxa weeyaan waa nasiib badantiin waqti wanaagsan baa aad soo gaadheen ilaahaydu ku simay waxaynu u dabaaldegaynaa farxadda wadankii ugu horeeyay ee noo aqoonsado mar labaad 1960kiina Israa'iil bad wixii hortaba noo aqoonsatay maantana iyada mar labaad ay noo aqoonsatay inaka oo teeni hore ka ilduufnay walxamdulillah jaaliyada reer Israa'iil ay nala joogtana waxa leenahay aad baad u mahadsantihiin Cabdiraxmaan Tuur markuu madaxweynaha baan Cabdiraxmaan war markaasuu soddon sano ilaa 20 sano ayuu nagu qaadanayaa aqoonsigu siiraan bal waran wuxuu yidhi anigu ma soo gaarayo ma gaarayo buu laakiin waad leedin aqoonsanaya laakiin ma gaarayo buu yidhi ina cigaal baan isagana yidhi bal waran maxaad u malaynaysaayoo wuxuu yidhi siday isaga socoto Somaliland dadkaan ogolayn buu yidhi inay xamar tagaan mar haddaanu dadku ogolayna weligeed iyo allaheed maruun bay wax soo dhici doonaan buu yidhi isaguna saddexdaa nin baa hadallada waaweyn ayaan ka hayaa. On the 26th of December 2025, here in Bristol, many of us with ancestral ties to Somaliland thanked our Creator and we rejoiced. The same was true across the world. I think we've all seen the scenes of jubilation and celebration across Somaliland, scenes that speak not of division, but of dignity, endurance, and of hope. Yet I realized that many people watching the news might not know what Somaliland is, or believe that it was simply a territory that was trying to secede or break away from Somalia. Social media is our biggest influence. Your young children will listen to it day after day. They have to understand that what they learn from social media are not the facts. The facts is what your parents will tell you. The facts is the stories you get from your mom, from your dad, from your uncle, from your auntie, and anybody who has lived through the civil war of Somaliland. Now, those facts are the ones, is the reason why we're here today again. And one thing that we will never give up on are these facts. Somaliland will always be free.
reer Somaliland soddon sano inuu gooni u fadhinay waa xilligii caalamka la macaamili lahayn waxaan u baahanahay qof kasta inuu birar ku dareemo halku ka yimi iyo ciduu yahay. It's an honor to stand here today as an Israeli, joining you here in this historic celebration. We're witnessing a moment that has been decades in the making, a moment where shared values of our two nations finally find the voice in the halls of global diplomacy. As Israel became the first UN member state to formally re-recognize Somaliland's independence, and to listen to your speeches, to see the culture, the history, especially when I was listening to the talk from our Jewish friend. It's great to see two countries coming together, and I feel that in the future, right now we are celebrating the recognition even of Israel. So soon UK will also recognize Somaliland. Let's make it happen. So that's our prayer, that's our greeting. عيناوي عثمان دعالة إيا حرقلي ورباهي تقرنك جمهورية Somaliland لندن.